السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان waxaan ku baranaynaa sanka anatomy-giisa iyo jirooyinka qaar oo la xiriira sinuses-ka ama meelahan oo empty-ga ah oo ku dul yaala skull-ka. soo marka haddaan u guda galno anatomy-ga oo external oo sanka ah, sanka haddaa u fiirisid banaanka hortiisa waxaa yaala qaybtan hore ee banaanka taalo oo qof walba u arki karo, laakiin waxaa xasuustaa gudahane in qayb kale ay ku jirto oona kala xiran. markii gudaha usii galno anatomy ayaan si fiican u baran doonaa. soo marka waxaan oo dhan waa iska terminology oo anatomy ah oo qofka oo ay tahay in uu barto haddii uu rabo ereyada oo technicalka ah, macnaha medical world haddii oo aad ku dhex jirtid waa inaa ogaataa technical words, sababtoo ah markii qof oo healthcare professional kula hadlayo ma ku dhahayo nose-ka qofka laga haya iyo waxaas, laakiin waxaa lagu leeyahay the maxilla or the frontal bone or the nasal bone or the vomer. macnaha sanka waxaa dul saaran ama la xiriira wuxuu ka samaysan yahay lafo badan oo la isku dhajiyay. haddii oo lego bridge aad taqaanid, waa ciyaarta oo bridge-kan oo la isdhexgeliyo oo nooc walba laga sameeyo. the lego bridge aad ku qortid haddaadan aqoon google maps oo arkay. so waxaa waaye dhowr laf oo la isdhexgeliyay, ma aha haddaa fiirisid iskalka haddaa fiirisid waxaa loo maleeyaa hal laf weyn oo isdul saaran, laakiin waxay ka kooban tahay lafyaal tira badan oo la isku dhajiyay. soo marka meeshan wuxuu ka kooban yahay waxaan loo yaqaano nasal bones, inta wuxuu ka kooban yahay frontal bones. qaybtan hore ee sanka wuxuu ka kooban yahay cartilage macarjow. haddii sankaaga oo pinchin ku samaysid waa arki kartaa. wuxuu kaloo ka kooban yahay waxaan loo yaqaano muxuu ahaa maxilla, waa iska magac lateral crus, major crus. so waxaana waa waxyaala aad baran kartid, laakiin muhiimadda waxay tahay inaad ogaatid in qaybtan hore as a protection uu yahay cartilage. qaybtan geeska ah wuxuu ka samaysan yahay cartilage oo waxaa ah fatty ah. qaybtan waxaa u badan hyaline cartilage oo ah mid oo xoogaa oo ay ku yar tahay fatka. soo marka terminology-gan haddaad joojisid isku day in oo aad ku qabatid maskaxda, ama haddii oo medical textbook ay haysid sida Gray's Anatomy oo kale aad ay u fiican yahay. Gray's Anatomy oo waxyaalo badan oo cover gareynayo oo ereyadan ku xifdin kartid. soo marka haddii gudaha u sii galno, sanka qaybtan hore oo baraan ku yaal markii gudaha u gashid waxaa ku dul yaala saddex saddexdaas laf oo loo yaqaano conchi oo turbinate. kan ugu koreeya waxaa loo yaqaanaa superior concha, kan dhexda ku jiro waxaa loo yaqaanaa medial concha, kan hoos ku jirna waxaa loo yaqaanaa inferior concha. soo marka su-aasha oo isweydiinta leh waxay tahay muhiimadda oo konkahan ama lafahan soo taagan oo sanka ku dhex yaala maxay tahay. kan saa arkaysid nasal septum-ka waaye. meeshan waxaa ku yaala waxaan arkaynaa inferior concha ama middle turbinate. macnaha kelmadda oo turbinate iyo concha waa isku mid. soo marka waxaa ku dul yaala waxyaalo loo yaqaano opening ama waxyaalo boqboq ah, meel daldaloolan ayaa ku dhex yaala gudihiisa haddii la furo saan oo kale. meeshan had lafta oo la furay oo kale waaye. gudihiisa waxaa ku yaalo sinuskaas oo ah meelo daldaloolan oo ku dhex yaalo iskalka. haddii madaxaaga aa fiirisid waxaa u maleysaa laf weyn oo ishaysata, laakiin haddii gudaha u fiirisid waxaa ka buuxa dulduleelo badan. sankaaga labadiisa gees, sankaaga meeshan dhexda ah ciriiri aad ayay yartahay, laakiin geesaha markaa ka fiirisid waxaa ku yaala daldalool waaweyn. kan waxaa loo yaqaanaa maxillary sinus, kan waxaa loo yaqaanaa frontal sinus. laba sinus kale ayaa jirta oo aan hadda baran doono. kan waa frontal sinus, kan inta waa naga qarsan yahay sababtoo ah lateral wall-ka oo macnaha derbigan oo lateralka ah oo sanka ayaa naga qarinaya, laakiin CT scan-kan ayaan si fiican ugu arki karnaa. macnaha dhankaas geeskaas kale ayuu ka jiraa sinuska oo wejigaaga dhanka kale. soo marka kan waxaa waaye maxillary sinus. kan maxillary sinus waa naga qarsan yahay, geeskaas uu jiraa. kan waxaan dhahnay waa frontal sinus. frontal sinus kan waaye. kan waxaa waaye coronal section. kan waxaa waaye sagittal section. haddaad taqaanid planeyaasha oo anatomy markii laga hadlayo waxaa loo kala qaybiyaa axial ama horizontal section, sagittal section oo ah in gees loo gooyo,
iyo coronal section oo ah dhankan oo hore iyo gadaal in loo gooyo kana waa gees so marka planekan oo sagittalka ah waxaan ku arkaynaa frontalka iyo kan oo loo yaqaano sphenoid sinus frontal sinus maxillary sinus iyo ethmoid sinuska waa kuwa yaryar ah oo air cells oo cells loo yaqaano ethmoidal cells ayagana waxa waaye meelo daldaloolan sababta daldalooladan markay ugu yaalaan iskalka waxa waaye in culayskiisa la yareeyo haddii ka waran maskax aan dhehee laftan oo maskaxdaada u hayso iyo sankaaga ay ahaan lahayd laf weyn oo ayadan iswada haysato culays ay madaxaaga noqon lahaa qoortaadana ma awoodi kari lahayn inaad qaadid culays dartiis macnaa qoortaa ku jabi lahayd culays dartiis laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay in meelahan wax daldaloolan maskaxda si laftaas oo madaxaaga ay u noqoto laf aad khafiif u ah oo qoortaada murqaha ay xambaari karaan oo fudud madaxaaga ku wareejin kartid oo ku socon kartid laakiin haddii uu cuslaan lahaa aan dhihi lahay meeshaas ay ahaan lahayd meel oo maas oo buuxo wuxuu kugu noqon lahaa culays so marka meeshaan hore waxaa loo yaqaanaa nares ama anterior nares inta gadaalna waxaa loo yaqaanaa quanae so marka haddii qof oo cadaver oo dissection lagu sameeyey oo kale oo gadaal aa fiirisid sida meeshaan ay u boqsan tahay oo kale ayuu u boqsan yahay inta uusan ku darsamin muxuu ahaa macnaa dhuunta the pharynx intuusan ku darsamin aan dhehe nasopharynx meeshaan waxaa waaye nasopharynx ama pharynx qaybta oo sanka ka mid ah intuusan ku darsamin waxay noqonaysaa dalool oo meeshaan hore oo nariska uu ku leeyahay oo kale meeshaan hore waxaan dhahnay daloolka nares ee loo yaqaanaa anterior nares kana waxaa loo yaqaanaa posterior nares ma la dhahayo waxaa loo yaqaanaa quanae waa iska terminology macnaha waxaan hadda aan idin sheegayo terminology waa erey wax loo yaqaan wax kale oo soo zaidinaya ma lahan so marka dadkan oo scientistiyaasha ah ayaa kelmadda u yaqaanaan wuxuu yahay opening gadaal oo sanka quanae so marka haddaan gudaha usii galno taa hore idin soo sheegay marka waxaa idin sheegaya in oo science-kan oo meeshaan oo gudihiis tabinateska ama meeshaan oo konkaha dhexdiisa waxaa ku dhex yaalo daloolkaas waxaa kasoo baxa waxyaalo oo fluid ah oo ay soo daayaan meelahan daldaboolan waxaa ku dul wareegsan epithelial cellskaas waxay soo daayaan dheecaanadaas markay ku aruuraan waxay kasoo dhex baxaan meeshaan oo loo yaqaano meatus waxaa kasoo dhex baxa macnaa intermediate meatus ama middle tabinate waxaa kasoo dhex baxa 3 dalool frontal sinus maxillary sinus iyo ethmoid sinuska waxay ku dareen gareeyaan kan oo dhexda ku yaalo macnaa middle tabinate ama middle conka hoostiisa baq oo ku yaala oo meeshaan inuu yahay umaleynaa meeshaas daloolkaas ku yaalo ay dhacaanka kasoo dhex baxaa si pressureka ugu relief gareeyo hawadana ay isku dhaafsadaan meeshaan ugu hooseysa kan loo yaqaano inferior conka ama inferior tabinate-ka dalool ayaa ku yaalo daloolkaas waxaa uu drainage ku sameeyaa ama dhacaan kusoo daaya ishaada labada il dhexdood hashii il macnaa meesha oo medialka ah waxaa ku yaalo meel dalool ah oo lacrimal macnaa drainage uu ku sameeya macnaa ilintaada drainage ayaa meesha kusoo sameysaa tubo oo waxaa laftay soo dhex martaa kan hoose oo macnaa inferior conka ama inferior tabinate-ka ay drainage ku sameysaa that's why haddii oo macnaa eye drops oo kale isha aad ku dhibcaysid isla markii waxaa arkaysaa qaraarkeed inuu afku imaanayo sababtan waxay tahay tubadaas oo gadaal ku taala ayaa meeshaan imaanayso kaasoo marka dhuunta ku tagaayo oo ku dareemaysid muxuu ahaa qaraarka meeshaan oo superior conka waxaa ku yaala hal drainage oo keliya halkaas drainage oo keliya wuxuu yahay sphenoid sinus ayaa waxaa ku yaala meeshaan wax loo yaqaan sphenoid recess macnaa meeshaan ayaa waxaa ku yaala boq oo xoogaa oo gadaal ku jira meeshaas waxaa kasoo baxa drainageka oo sphenoid sinuska oo kan ah ayaa meeshaan drainage ku sameeya meeshaan hal idin tilmaamayo
superior conka agtiisa ayuu drainagekaas ku sameeyaa. So marka haddii gudaha usii galno kuwan waaye kan hadda idin sheegaya drainageka uu ku sameynayo. meeshaan waxaa loo yaqaanaa boq ayaa ku yaala idin dhahay haddaa xasuusan tahay. boqan meeshaan waa uu tilmaamayo, laakiin labada boq dhexdood waxaa ku yaala laftaas waxaa loo yaqaanaa uncinate process of ethmoid. macnaha laftaan oo meeshaan ku taalo oo sanka oo borderkiisa ah. cashirkan bilowgiisa idin sheegay iskalka wuxuu ka samaysan yahay lafo badan oo laysku dhajiyey, dhowr lafo oo laysku dhajiyey. sanka haddaa u fiirisid wuxuu borderkiisa uu ka kooban yahay maxilla, frontal, nasal, sphenoid bone, the palatine bone. macnaha 5-6-7 oo bone ayuu borderkiisa leeyahay oo kala duwan. haddii hal loo kala gooyo waxaasoo dhan wuxuu noqonayaa borderyaal oo uu leeyahay muxuu ahaa sanka. waxaa ka mid ah laftan oo loo yaqaano vomarka oo nasal septum ka samayso. so marka ethmoid bone waxay ka kooban tahay the middle conka ama the middle turbinate iyo superior conka waa gobol ka mid ah ethmoid bone. saa idin soo sheegaya waa gobol laysku dhajiyey. so marka the superior conka iyo middle conka waxay ka mid yihiin ethmoid bone. saa hor idinku soo sheegay. lacrimal bonekana meeshaan ay ku taalaa waa laftaan yar hoostiisa oo inferior conka hoostiisa waxaa ku yaala dalool oo loo yaqaano inferior meatus. meeshaasna waxaa drainage ku sameysa lacrimal duct ama tubada ilinta kasoo qaada muxuu ahaa isha. so marka kanna waa wixii hadda idin soo sharxayay. kan waa superior conka, dhexdii hoostiisa waxaa ku yaalo drainage oo sphenoidka ah. kan waxaa waaye medial conka, meeshaas hoostiisa waxaa ku yaalo oo meeshaan ah meel boqsan ama dalool oo laf ay ku dhex taalo oo laba gobol ay u kala goyso. hal meel waxaa drainage ku sameeya frontal sinus, hal meel kale waxaa ku sameeya maxillary sinus, hal meel kale waxaa ku sameeya ethmoid sinus. macnaha 3 drainage ayuu leeyahay. labadan laf waxay ka kooban yihiin ethmoid bone qayb ka mid ah ay yihiin. tan ugu hooseysa waa laf gooni ah inferior conka, macnaha konkaha hoose waa laf gooni ah kama mid aha ethmoid bone. haddii google images aa ku qortid ethmoid bone kaligiisa waxaa arkaysaa in ethmoid bone uu ka kooban yahay kan iyo olfactory oo cribriform plate loo yaqaano laftaas kore iyo crista galley laf kale oo macnaha oo ethmoidka dushiisa oo kor saas ugu soo taagan ayay ka kooban tahay macnaha ethmoid boneka. kan laf goonigeed ee waaye oo inferior conka ah. hoosteeda waxaa ku yaala hal daloolkaas oo ah kan isha kasoo qaadaya dactiga oo ilinta ah. so marka shaqada uu qabto the conka waxay tahay in surface area uu badiyo oo sanka uu leeyahay. sanka aad ayuu ciriiri u yahay. sanka markii aad fiirinayso waxaa u malaynaysaa dalool weyn, laakiin labada maxillary sinus hadda idin soo sheegayo labada gees ka xiga sanka oo xiran oo sanka qayb ka mid aan ahayn daloolkaas bas ayaa ka dhexeeya. marka maadaama oo sanka saas u yaryahay surface area oo sanka ayuu badiyaa. surface area waxaa laga wadaa areada oo sanka uu leeyahay ee banaanka macnaha oo diyaar ku ah in oo neeftii aan neefsatay oo macnaha oo areada oo taawanaysa hawada oo sanka ku gashay. so marka maadaama meel ciriiri ay tahay haddii wax qalqalo oo warwareegsan aad gelisid waxaa noqonaysaa surface area oo weyn ay yeelanaysaa. so marka waxay kaloo kululeysaa ama warmth siisaan hawada aan neefsatid inta aydan sanbabada ku tagin. waxay kaloo sameysaa wax yar oo waxay ku dartaa oo macnaha humidity, wax yar oo biyo oo kale ay ku dartaa si hawo oo aad iyo aad u qalalan aysan sanbabada ku tagin. waxay filter gareysaa waxyaalaha oo dust ama wasakh ama bacteria oo ku dhex jira, sababtoo ah waxay ka kooban tahay epithelium oo loo yaqaano ciliated pseudo stratified columnar epithelium. cashir aan epithelium cells kusoo baranaynay. epithelial cells waxay u kala qaybsamaan squamous cell kuwa loo yaqaano cuboidal cells, columnar cells. so marka cellskan epithelialka oo dul saaran
mucous membrane-ka waxaa loo yaqaanaa pseudo stratified columnar epithelial cells. kuwaasna marka sifaadka ay leeyihiin characteristicska waxay tahay in mucus badan goblet cells oo ku dhex yaala ay soo deeyaan. mucuskaas oo celiya ama ay trapping oo ay ku dhex macnaa cishmaan waxyaalaha wasaqda ah ama bacteriyada ah, kadibna oo brush borderka oo uu leeyahay oo uu ku sameeyo macnaa trapping. wuxuu kaloo soo deeyaa antibodies oo IgA ay ka mid yihiin, kuwaas oo isla markii waxay bacteria ay waxaasna joojinaya. wuxuu kaloo joojiyaa in oo macnaha hadda inay sheegay waaye pseudo stratified columnar epithelium goblet cells ayaa ku dhex yaala oo soo deeya mucuska. waxaa kaloo ku yaala enzymes macnaa bactericides lysosome ayaa ka buuxa oo elimination ku sameeya bacteriyada. wuxuu kaloo soo deeya waxaan antibacterialka ah, waxaan beta defensin, lactoferrin, immunoglobulin A, waxaanu dhan waa antibacterials oo iyo fungi iyo waxaasoo dhan oo dilaya, macnaha howlo badan oo muhiim ay ku qabtaan. meeshaan arkeen waxaa waye pseudo stratified columnar epithelium cells. sa arkaysid goblet cellskaas waxay soo dayaan mucus. meeshaan haddaa arki kartid waxaa dul saaran waxyaalo oo brush oo kale ah. brushkaas oo saas u babanaayo waft ayuu sameynaya, macnaa saas ayuu babanayaa. waxay wasaq oo soo dhex gasha makaba dhex bixi kara, meeshaas ayaa lagu qabanayaa. macnaha wasaqdii dhan meeshaas ayay ku xirmaysaa, ma u gudbi karto sanbabadaada, sababtoo ah sanbabadaada iyo trakiyaha mala rabo wax wasaq inay sii gaarto. so marka anterior nasal cavity-ga ama meeshan hore oo sanka ah waxay ka kooban yihiin epithelial kala duwan. qaybta hore oo sanka ah macnaa anterior waxaa laga wadaa qaybta kore wuxuu ka kooban yahay keratinized stratified squamous epithelium cells. epithelial cellska noocan squamouska ah badanaa waxay ku yaalaan meelaha oo ay soo gaaraan dhaawacyada badan, sababtoo ah waa kuwa aad u adkaysi badan. waxyaalo la isduldul saaray waay, macnaha adoo isdul saartay waay muxuu ahaa waxyaalo oo badan, muxuu ahaa 10 buluketi adoo isdul saartay oo kale, oo haddii laba ay soo dhacdo oo 8 ay meesha ku harayso oo kale. sababta oo loo yaqaano stratified waxay tahay waa waxyaalo isduldul saaran oo loogu talagalay in ay u adkaysaan dhaawacyada soo gaaraya. qaybta gadaal wuxuu ka kooban yahay pseudo stratified columnar epithelial cells oo ka buuxo goblet cells. konkaha waxaa waaye pseudo stratified columnar epithelial cells, goblet cells ayaa ka buuxo. iyo qaybta kore oo olfactory region ama meeshii hadda oo ethmoid bone-ka idin tusaayay. ethmoid bone-ka waxaa dul saaran olfactory mucosa ama nerviyaasha oo sanka qaada, nerviyaasha sanka qaada, nerviyaasha aan dhehe oo urta dareenta oo maskaxda u dirta ayaa meesha saaran. waana nooc loo yaqaano pseudo stratified pigmented epithelium cells. marka waxaa dul saaran macnaa cranial nerve number 1 oo ah olfactory nerve. olfactory nerve meeshuu saaran yahay, meeshaas oo uu ka qaado dareemada oo waxay oo urinta ah. so marka CT scan waayo aad iyo aad u qurux badan. meeshan CT scan-kan waxaa ku arkaysaa waxyaalaha sinuses oo aad iyo aad clear u ah. meeshan arkaysa waa iska ama meel oo eber ah. meeshan sawir oo kan weligay ma arkin oo sidaan u qurux badan, sabab badana x-ray hadaa fiirsid, x-ray waa waxyaalo badan oo isku dhex yaala, laakiin waa frontal section oo si fiican clear ah. waxaan si fiican u arkaynaa maxillary sinus labadan meel. inta waxaa arkaysaa hadda idinkaga sheekeynayay sanka in uu aad ciriiri u yahay. sankaaga markii uu duleelka banaanka a fiirsid waxaa u malaysaa waxba, laakiin gudaha hadaa fiirsid waxaa arkaysaa borderkiisa meeshaan uu ku ekyahay. meeshaan waxaa ku yaala inferior conka, middle conka iyo superior conka oo ciriiri ka dhigayo. so marka that's why marka surface area ayuu badinayaa konkaha oo u suurtagalaysa waxyaalaha neefta neefsatid in wasaqdiisa oo laga celiyo. inta waxaa ku yaala frontal sinuses, inta waxaa ku yaala ethmoidal sinuses. waa sawir oo aad iyo aad cajiib u haddaad joojisid oo si fiican u arki kartid. si lamid ah meeshan waxaa ku yaala sagittal section waay oo CT scan ah. inta waxaa ku yaala sphenoid sinus, frontal sinus. meeshan waxaa waaye vestibuleka ama meesha daloolka oo sanka. inta waxaa nasal cavity, waxaa meeshan oropharynx. si lamid ah CT scan kale waaye kan asana. meeshan waxaa waaye maxillary sinuses. sanka waxaa arkaysaa yaraantiisa meeshan
زائد إنه يريا معناه آد أيو قرح بداية صور كان أصيغنا أو CT scan كا CT scan آد أيو كلير سيا X-ray سببتو معناه resolution أو آد وفي عن أو واحد بقى كفاية مكرتد أيو كسينا سو مركا بورياش وسنك اللي هاي سنهور أصو شاكني و inferior meatus معناه دلدلولد أو لفتي أو كونكا عند هني أيو كل حيالا ووحي هاد الريبيت middle meatus waxaa drainage ku sameeya maxillary sinus frontal sinus anterior ethmoid sinuses waa tii waxyar korda idin soo sheegay in meelahaas daldaloolan oo sinuskaas waxaan dhahnay meeshaas daldaloolan waaye oo frontal sinus oo kale drainagekiisa ayuu meeshan ku sheegayaa in kan inferior meatus oo kan ugu hooseeya oo ilinta ay drainage ku sameyso kan dhexda in saddexdan sinus ay drainage ku sameeyaan oo maxillary frontal iyo anterior ethmoid cells kan superior conkan waxaa ku sameeya wax kuwa qaar oo ka mid ah ethmoid cells laakiin wax badan ma ah badankood waxay drainage ku sameeyaan middle conka macnaa sphenoid sinus kana meeshan ayuu ku sameeyaa oo loo yaqaano sphenoid recess wuxuu ku yaalaa superior conka dushiisa kaasoo marka uu ku yaalo dalool yar oo meesha ku yaalo sheekada marka interesting waxay tahay meeshan oo sphenoid sinuska bone waaye macnaha laf oo aad iyo aad khafiif u laftaas khafiif ku marka waxay suurta gelinaysaa hadii qof cancer uu ku dhaco meeshan maskaxda ayaa dul saaran meeshan waxa dul saaran waxa loo yaqaan pituitary gland oo kamid maskaxda waxa ka dhasha sometimes cancer kaas oo meesha ka dhasha waxay noqon lahayd qofkii qaliin weyn in lagu sameeyo oo problem oo maskaxdiisa in lafihii la kala furo oo blood vessels iyo nervihii dhibaato inay ka gaarto ay keeni lahayd laakiin maadaama meeshan laf khafiif ay tahay meeshan ayaa waxaa lasoo gelinayaa camera endoscopy tubo dheer ayaa lasoo gelinayaa laftan sphenoid ayaa la jebinayaa maadaama laf aad khafiif u ay tahay inta ay qaliin lagu sameynayaa oo cancerkii macnaa tumorka meeshan laga soo goonaa soo marka waxaa lagu leeyahay the pituitary gland ayaa meesha macnaha birta laga soo geliyo ayaa meeshan laga goon karaa marka sheeko interesting ee waaya marka dhibaatada kale ay leedahay waxay tahay haddii aad dhaawacdid oo kale haddii trauma ay kugu dhacdo oo wejigaaga oo adoo baawur wadid oo kale steering wheel ku dhacdid ama haddii uusan ku xirnayn seat belt oo gadaal fadhisid oo kursiga ka horeeya ama meesha kore oo roofka baawurka ku dhufsatid si daran waxaa laga yaabaa in fracture uu ka gaaro meeshan oo base-ka oo maskaxdaada dhaawac ay gaarto soo marka faa'iidana waa leedahay dhibaatana waa leedahay laakiin waxaa ogaataa cancer inuu aad muhiim ugu yahay haddii qof oo cancer uu uga dhaco meeshan oo pituitary iyo agaarihiis waxay la mid in sphenoid bone la jabin karo maadaama aad u khafiif u yahay oo qofkii loogu sameyn karo macnaha surgery oo laga soo gooyin karo cancerka habka loogu sameynayna waa sidan marka bir ayaa waxaa la andhahe macnaa probe ayaa waxaa la dhexgelinayaa sanka dushiisa wuxuu dhex marayaa konkaha agtiisa sphenoid bone la jabinayaa waa lasoo goynaa muxuu ahaa tumorkii oo meesha ku yaalay aad iyo aad ayuu marka fudeed u yahay waxaa kaloo ogaataa marka innovationka oo nervous systemka badankiisa wejigan qaybtan waxaa innovation ku sameeya trigeminal nerve meeshaan arkayna sensory innovation by gaar ahaan V1 iyo V2 V1 waxaa waaye macnaha maxillary branch iyo mandible branch trigeminal nerve try macna kelmadda try waa saddex branch ay u kala qaybsamaa 1 2 iyo 3 soo marka V1 iyo V2 ayaa waxay innovation ku sameeyaan qaybtan hore iyo qaybtan dambe olfactory waxa waaye cranial nerve number 1 soo marka xasuusnow nerve innovation oo sanka in olfactory nerve oo cranial nerve number 1 iyo trigeminal nerve oo cranial nerve number 5 inay ku sameeyaan innovation waxaa kaloo innovation ku sameeyo spinal nerves nervial oo kasoo baxa spinal cord oo loo yaqaano sympathetic ama parasympathetic nervous system ayaa waxay innovation ku sameeyaan glands oo meesha ku yaalo iyo xididada oo dulmara meeshan that's why haddii qofka marka uu ku dhaco hargabka oo kale oo sanka uu ka xirmo uu qaadanayo daawooyinkan oo ephedrine ama pseudoephedrine oo uu muxuu ahaa
iskaga yareynaya xididada oo sanka si oo qofkii uu ku neefsado oo neeftiisa ugu furanto. Sympathetic nervous systemka iyo habkay u shaqeeyaan daawooyinkaas oo alpha blockers ama alpha agonist iyo mar ayaan baran doonaa oo cashir ka sameyn doonaa pharmacology-good. So marka haddii qofka dhaawac uu soo gaaro marka meeshii hadda aan sheegaynay lafahaas oo khafiifka ah oo synoidka ama ethmoid cells oo dhaawac uu ka gaaro waxaa kasoo baxa waxaan loo yaqaano CSF, cerebrospinal fluid, macnaha fluidka oo ay ku dhex dabaashaan maskaxda spinal cordka. waa fluid oo clear ah, macnaha fluid oo waxaa waaye colorless, biyo oo kale ah, waxaa ka buuxo salt iyo amino acid iyo waxaasa, dhiig oo kale ma aha. So haddaa aragtid marka qof feer lagu dhuftay oo kale, haddii qof feer si xun loogu dhufto wejiga oo sankiis uu soo daayo biyo badan oo saan oo kale ah oo dripping ah, qofkaas dhaawac ayaa waxaa ka gaaray maskaxda oo jabiyey muxuu ahaa jawaanada ama membraneska oo maskaxda ay ku dhex jirto oo loo yaqaano dura mater iyo pia mater. So marka durihii ayaa jeexmay, lafihii oo maskaxda dul saarna oo sphenoid boneka ama ethmoid boneka ayaa jabay. qofkaas wuxuu u baahan yahay si deg deg ah in CT scan lagu saaro oo la arko fractureka oo soo gaaray lafahaas si loo ogaado in muxuu ahaa dhaawac weyn uusan maskaxda ka gaarin oo dhibaato kale aysan jirin. So marka waxyaalaha kale soo gaari karo waxay tahay haddii qofka dhaawac uu ka gaaro ethmoid boneka ama sphenoid boneka waxaa loo yaqaano exophthalmos ama endophthalmos, in qofkii maskaxdiisa indhihiisa banaanka ay usoo baxaan. dhaawac soo gaaray laftaas ayaa waxay keenaysaa in laftii ay soo riixdo ishii oo banaanka ay usoo baxdo, ama inay ishii gudaha usoo gasho. macnaa exophthalmos waxaa waaye in ishii banaanka ay usoo baxdo, kan waxaa waaye ishii inay gudaha u laabato. sa arkaysid isha inay banaanka si nidaam leh, banaankan aysan oolin, gudahana aysan ku jirin ayaad oo dhexda ay joogto. qofkan gudaha ayay ku laabatay. that tells you laf ka mid ah lafahan oo orbitka ku wareegsan ayaa jabtay oo accommodation ku sameyn weysay ishii, that's why isha gadaal ugu laabatay. qofkan waxaa arkaysa in wax gadaal uu kasoo riixaya isha, taasoo keenaysa in dhaawac uu gaaray. labadan arrinba waa emergency. haddaa aragtid qof macnaa trauma galay ama wax un uu soo gaaray oo ishiis ama gudaha u laabatay banaanka ay soo gaashay, in si deg deg ah baaritaan loogu sameeyo oo jab uu jiro oo lafaha gudaha ah. So marka waxaan kale oo muhiimka waxay tahay in infectionada oo sinuska oo gaar ahaan maxillary sinus aad ugu badan yahay. dadka qaar waxaa arkaysaa oo infection hargab oo kale uu ku dhacayo oo haddana muddo badan uusan ka baxaynin, 3 isbuuc 4 isbuuc, oo xataa ay dhibayso in ay fariistaan ama madaxood inay dhaqaajiyaan. sababta waxay tahay inuu ku dhacay infection loo yaqaano sinusitis. sinusitis waxaa waaye inflammation ama infection oo ku dhacaya sinuska, kaasoo keenaya in drainage-kii oo meeshii oo drainage uu ku sameynayay oo middle conka hadda aan kasoo hadlaynay in drainage uu ku sameyn waayo. so marka meeshan waxaa waaye macnaa sawir oo ku tusaya diagram oo laga dhigayo oo kale meeshan inuu yahay maxillary sinus. maxillary sinus openingkiisa meesha drainage uu ku sameynayo fluidka uu soo daayo, sa arkaysid kor ayuu ku yaalaa. waa barkad yar oo drainage ku sameynaysa kor. haddii barkadada oo kor ay ku sameynayso maxay u baahan tahay pump in la saaro. so marka meeshan oo meatiska oo middle conkaha ah ama middle turbinate-ka oo hadda aan sheegayn inuu drainage ku sameynayo, haddii uu xirmo oo meeshan swelling ay ku dhacdo, qofkii drainage ma sameyn karo. taas waxay keenaysaa in ay ka buuxsanto infection ama pus, wax ka dhex buuxa, malax iyo wax la mid ah, oo xitaa xanuun uu keeno in ilkaha ay xanuunaan, ilkaha kore. sababtoo ah 3 goos ee ugu dambeysa isha ilkaha kor iyo sinusku way isdul saaran yihiin. dadka qaar xataa waxaa jiro gooskooda 3 ugu dambeyso iyo maxillary sinus laga dul arki kara, macnaha xitaa haddii oo inspection lagu sameeyo oo laga dul arki karo. so xanuunada marka oo sinuska maxillary sinuska soo gaaro iyo xanuunada oo gooskaas soo gaaro sometimes waa la isku qaldaa. meel laga haya ma ogid. qof waxaa laga yaabaa in uu dentist u tago isagoo leh waxaa i xanuunayo ilkaha, goosa i xanuunayo, laakiin wax xanuunayo goos ma ahee waxaa xirmay muxuu ahaa drainage-kii oo middle conkaha macnaa meatiska uu ku sameynayay, taasoo u keenaysa in qofkii oo uu drainage ku sameyn waayo. so marka konkayaasha kale frontal sinuska oo kale
kor ayuu ka imaanayaa hoos ayuu drainage u sameynaya waxaa caawinaya gravity laakiin kan maadaama oo sinuskii hoos uu ku yaalo boqii kor oo drainage uu sameynaya kor u yahay dhib ayay noqonaysaa qof marka waxaa kula talin kartaa in uu seexdo gees marka uu seexdo waxaa suurtagalaya in wixii oo meeshan ka buuxsamay drainage kor uu ku sameeyo sababtoo ah waxaan dhahnay gravity oo caawinaysa malahan si ay ugu suurtagasho inuu drainage ku sameeyo qofkii inuu dhankaas u seexdo haddana xoogaa kadib dhankaana u seexdo oo u nasto si drainage uu ugu sameeyo waxyaalahan oo wasaqda ah oo ka dhex buuxsantay sinuska so marka waxa hadda aan sheegay waaye haddii xanuunka marka oo qofka oo zaid ugu qabto ilkaha waa inaa weydiisaa in dhaqdhaqaaqa uu qofkaas dhibaya haddii macnaha qof arkaysid oo uu ku dhacay macnaha infection oo hargab uu hayay muddo isbuuc ama 2 isbuuc oo kale oo laakiin still uusan ka bixin oo 3 isbuuc 4 isbuuc ay gaartay xoogaa qandhan ay hayso oona sheeganaya in marka uu dhaqaaqo wajigiisa uu dhaqaajiyo ama hoos uu sujuudo oo kale marka uu rukuuco oo kale oo gooskiisa uu zaid u xanuunayo waxaa ka shakisaa in xanuunkaas uu ka imaanayo sinuska oo blockage noqday sababtoo ah sinuska markuu buuxsamo sometimes waxaa meesha ka buuxsamaya 50 mil ilaa 80 mil xataa dadka qaar waxay sheegaan in ilaa 150 mil uu qaadi karo macnaa 150 mil culeyskiisa ayaa wuxuu dul saarmayaa sheeg meeshan oo ruudka oo saddexdan goos ugu dambayso so iskugu dhow yihiin oo arkaysaa markii taas ay dhacdo waxaa dhaxayso in nerviyaasha oo gooskii uu soo gaaro malaxdaas iyo bacteriadaas infectionkaas taasoo keenaysa qofkii inay iskaga dhex darsamaan meesha laga hayo inuusan ogeyn oo uu leeyahay goos ayaa xanuunaya halayga siibo laakiin meesha problemka uu ka jiro uu yahay sinuska soo marka muhiim waaye in oo qofkii oo sida saxda ah diagnosis oo sax ah loo siiyo